haysto ama la isku qabsanayo waa dan shakhsi ah dan guud la isku qabsado dan guud waxa weeye waxay leedahay talo isqabsiga waxa laga bixi karaa iyadoo danta shakhsiga laga tago danta qabiilka laga tago soo ma fahmin saldanad Allah bixiya inta joogis Allah garanaya marka inta aad joogto waxa loo baahan yahay inaad haddaad joogto meesha aad dan guud ka shaqayso oo kaliya marka adigu dan guud ka shaqayso dadka ka hooseeyna kulligood waxay bilaabayaan inay ka shaqeeyaan danta guud laakiin markay ka arkaan adoo madax ah inaad dan gaar ka shaqeynayso hadda waxa soo baxaysa 10 milyan ama 12 milyan ilaa Soomaaliya tiradooda qof walba dan uu leeyahay qof walba daniis uu raacdo marka haddii marka laga tago danaha shakhsiga isqab qabsi ma yimaado mahad allaale waxana hay maalintii meel kastaba ha joogtee Soomaali weynta ruux muraadle mooye aan lagu murmaynin santa horta kalsoonida aan ku qabo aniga iyo madaxweynaha in wada shaqaynteena oo wanaagsanaan doonto waa 100% xiriirka madaxweynaha aniga naga dhaxeeyo waa xiriir ku salaysan danta ummadda Soomaaliyeed wax dan gooniya oo madaxweynuhu leeyahay male wax dan gooniya aniga ra'iisul wasaaraha aan leeyahay male sidaas daraadeed waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa kuna dhiirigelinayaa inay nagu garab istaagaan niyad wanaagaas madaxweynaha iyo anigu aan ku shaqeyno diyaarna aan u nahay inaan sii xoojino waxaa soo haray hay'adaha kale ee dalka waxaan kulligood ku bogaadinayaa in dadka Soomaaliyeed aan u wada shaqeyno waxaa kaloo jira sida aan markii hore sheegay khilaaf kama dhaceeyo shacabka Soomaaliyeed laakiin siyaasiyiinta baarlamaanka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha maamul goboleedyada kulliga waxaan saaran waajib inaan mar dambe khalkhal gelin shacabka Soomaaliyeed haddii ilaahay maalin walba waxaan ka hadlaynaa wax wanaagsanna waxay ku xiran tahay in loo istaago oo loo shaqeeyo walaalayaal ila garab gala caruurteenna aan mustaqbal u sameeyno dalkeenna sharafkiisa iyo karaamiisa soo celinno dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego khibradeyda adduunyada meel walba oo dad Soomaaliyeed ay joogaan hoos baa loo eega meel walba oo aad istaagtid haddii aadan hadlin midabkaada iyo shakligaada waa la ogyahay inaad Soomaali tahay aeroboor walboo tagta waa lagu joojinayaa xuduud walboo tagta waa lagu istaajinayaa dunida meel walbo ay Soomaali ku nooshahay dhibaata ayaa haysata war qofina sharaf ku yeelan maayo dalka dibadiisa haddaadan marka hore dalkaada sharaf ku lahayn haddii aad shaqo ka bilowdo meel adduunyada ka mid ah oo aad mustaqbal gaarto dadka ajnabiga aad la shaqayso way ku faaninayaan maxay kugu faaninayaan ma taqaanaa waxay kugu faaninayaan wax aad u malaysa inay tahay faan laakiin cay ah waxay ku leeyihiin adigu Soomaalida kale waad ka duwan tahay waxay ku leeyihiin dadkaadu way saakhideena adiguna maxaad u saakhidi weysa waxay ku leeyihiin yaa Soomaali ka filanaya wanaag yaa Soomaali ka filanaya horumar أنا أدين شيء جاي أنا جا كفلنا إن الصومالي ده وناك أنا جا الصومالي ده كفلنا إنه هرب دايجانا تهديو معدن باتبوري قاعدي سمالي دايجانا تهديو معدن باتبوري قاعدي سمالي منتظر دقاقو
baneeya webiyada kuntadoo dhaqaaqo galaydiina beero gesbaneeya webiyada gacmaha isqabsada garbaha isasaaro isu wada gargaaro qaylkeenan gaadhne gobaanimada wada jira ummadda soomaaliyeed ugu bishaaraynayna madaxweynihii aanu doonaynay baa noo dhashay geeska afrika qorax baa u soo baxday kii soomaaliya midayn lahaa baa noo dhashay gacanta gumaysiga waa ka baxaynaa amliyaro iyo waayeel oday iyo habar gabadh iyo wiil ummadda geeska afrika saaran qorax baa noo soo baxday waxaanu kaanu ilaahay weydiisanaa noo dhashay madaxweynahaanu doonaynay baa noo dhashay soomaaliya waa midoobaysaa gacanta shisheeyaanu ka baxaynaa gumaysi baan dib noo